Shirkan oo ahaa mid ballaaran ayaa looga hadlayay arrimaha isu keenida ciidamada kala duwan ee Puntland oo baryahan dambe ku kala irdhoobay dhacdadii dabayaaqadii sanadkii tegay ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. waxaana shirkan hogaaminayay wasiirka wasaaradda amniga dowladda Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland General Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha ciidanka booliska Puntland General Maxamed Cali Xaashi iyo General Maxamuud Cismaan Cabdullaahi agaasimaha ciidanka BSF. Shirkan ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan, waxaana la isku raacay in la dardargeliyo dagaalada lagula jiro cadowga shacabka Soomaaliyeed ee ku dhumaalaysta buuraleyda Calmadow iyo Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland. BSF waxay ku dhiirigelinaysaa shacabka ugana mahadcelinaysaa sida baaxadda leh ay ula wadaagaan wax kasta oo lid ku ah amniga dalka iyo dadka. Taliska guud ee ciidanka difaaca dowladda Puntland ee BSF waxay mahadcelin u soo jeedinayaan saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee Puntland ee ka qayb galay kulanka maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Puntland ee Boosaaso.